tala soo jeedintii madaxweynaha ka bacdi waxaan ku qancay inaan ka noqdo hankaygii ahaa inaan u tagtamo maayarka caasimadda taasoon leeyahay xildhibaanadana aad baa u mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin waxaa kaloo aan u mahad celinayaa madaxweynahayga tallaabada ay soo jeediyey waxaan halkan uga hambaliyeynayaa saaxiibkay cabdikariin axmed mooge oo ah ninka aan uga tanaasulay inuu noqdo maayarka caasimadda runtii waan ogahay taageerayaashayda way ku adag tahay mudday soo xagbiyeen laakiinse kursigu laba uma qaybsamo kursigu qofunbaa ku fadhiista haddii aan laysu hanayna waxay noqotaa foolxumo taa si ayna u dhicin waxa aan ku qanacsanahay inaan walaalkay cabdikariin axmed mooge oon muddo 30 sano ka badan aanu saaxiib ahayn aan uga tanaasulo cabdikariin colaadinagamay dhaxayn waxa weeye tartanka kursiga anna aan ku fadhiyey isna uu doonayay inuu soo fuulo uunbuu ahaa tartanka naga dhexeeyey cabdikariin axmed mooge waa shakhsiyad aad u wanaagsan aanan aaminsanahay inuu hanan karayo kursigaasi waxaan leeyahay cabdikariin axmed mooge wuxuu wax ku noqonayaa filashada badaneed ka filaysaan iyo ballanqaadku sameeyey shacbigu hadduu cashuurta bixiyo waxaan leeyahay taageerayaashaydii inay saa ku qancaan saaxiibada xildhibaanadana waxaan leeyahay inaynu 17 bisha cabdikariin u wada cumaamadno u caleema saarno inuu maayarka noqdo magaalada anugu ka tegi maayo golahayga waan golahaygaan dhex fadhiyayaa odaygii magaalada iyo maayarkoogii horaan noqonayaa sidaasaanan insha allahu tacaala ku dhex joogaya